السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر كافي أونلاين ومرر بدن ku diyaarisay koorsyo la tacalluqa culuumta engineering iyo architecture-ka Autodesk Revit oo basic and 3D and 2D hore aan u soo gelinay ayaan waxaan diyaarinay muddooyinkii ugu dambeysay advanced course oo la tacalluqa advanced course kaas oo aad ku baran doontaan sida loo soo import gareeyo KDWG-ga aad AutoCAD-ka ku isticmaalaysay hab fudud oo uu ku sahlayo Revit-ku walibana sida ugu quruxda badan. Waxa aynu baranaynaa sida loo isticmaalo loona design gareeyo grid axis-ka, column-ka iyo foundation-ka inagoo ku arrangement garanayna design-kii DWG-ga hore loogu soo muujiyay inagoo qaybaha oo dhan cabirka iyo midabka sida looga bedelo baran doona. qaybaha ugu muhiimsan ee ku xigsiin doona waxa ay noqon doontaa habka loo isticmaalo curtain cladding, curtain glass oo kala bixi doono storefront, curtain wall iyo kuwo kale oo badan. Waxa aynu ku sii xigsiin doonaa qaybaha ugu muhiimsan ee casharadii hore aynaan soo arag habka loo isticmaalo Islamic pattern-ka kaas oo qurux iyo tayo noqon doona commercial design-ka aynu samayn doono insha Allah. sidoo kale waxaan casharada ku soo kordhinay landscape oo noqon doona sida loo sameeyo parking-ka meelo dhir lagu beero sidoo kale wadooyin qurux badan sida isgoysyada calaamadaha loogu sameynayo wadooyinkan halkii ay dadku marayeen oo iyadana aan design gareynay si hadhow uu landscape-ka ugu soo saaro dhismaha bilic iyo saameyn ugu yeesho. casharada qaybaha ugu dambeeya waxaynu ku baran doonaa sida loo sameeyo brand logo dhismaha qaybtiisa dibadda inagoo tusaale ahaan ugu sameyn doona brand logo cafe online. waxaan baran doonaa oo kale sida sawir qurux badan oo reality looga qaado isla Revit-ka dhexdiisa. sidoo kale waxaan baran doonaa sida title block loo sameeyo sheets-ka loo soo load gareeyo inagoo isticmaali doona library-geena title block-yada ku dhex jira. waxa aynu kusoo gabagabayn doonaa barashada software-ka Rhodes. ugu horeyn waxa aynu baran doonaa sida loo install gareeyo Rhodes-ka kadibna waxa aynu ku xigsiin doonaa sida loo isticmaalo Rhodes-ka saddexda qaybood uu kala leeyahay barashidka saddexda qaybood oo ku fududeyn doona hadhow in si sahal ah aad design-kaaga warqad aad uga sameyn karto lana soo bixi karto si uu design-kaaga u hirgalo loona share gareyn karo. magacaygu waa Cabdiqani Cabdilaahi. haddii aad tahay nashqad sameeyo aba xirfadle ku takhasusay samaynta nashqadaha quruxda badan waxaan kuu diyaariyay course Revit oo alaabaan kuu diyaarino essential ku sahlaya sidaad u sameyn lahayd nashqad qurux badan. haddii aad u baahantahay inaad course-kan isdiiwaangeliso aba is-registerayso waxaad nagala soo xiriiri doontaa nabarada shaashada ku qoran iyo website-ka. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.